shacabka gobolku waxay codsanayaan xuquuqdii ay lahaayeen inay helaan in ay la mid noqdaan gobollada dalka. gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay gobollada dalka, sidaas daraaddeed matalaad inay ku helaan aqalka sare ay rabaan, waxay rabaan maqaamkii in la dedejiyo. annagana waxaan ka codsanaynaa bacdamaa dastuurka uu qeexayo qodobka 9aad, waxaan rabnaa maqaam ku imaaday si nidaama, ku yimid si dastuuri ah, ku yimid si madaxda qaranka iyo dhammaan shacabkoo dhan lagala tashtay. waxaan kaloo rabnaa nidaamkaas isaga mudane madaxweyne in shacabka uu ka soo bilaawdo, talada shacabka la soo ururiyana aan annaga hay-adihii u soo gudbinno oo ay ka mid tahay xukuumaddii iyo golahii shacabka iyo aqalka sareba, si go'aanada la gaarayo ee u noqdaan kuwo shacabka ka yimid. kale shacabka gobolka banaadir waa la socotaanoo dhibaatooyinka fara badan arrimaha amniga oona hadda xallinayno. waxay kaloo codsadeen kulamada oo golaha shacabka gaar ahaan mararka ay kulmayaan waddooyinka oo xirxiran awgeed in loo qafiifiyo oo waqtiyada oo kulanka uu socdo waa wax la garan karo, laakiin in waqtiyada aan lagu dheeraynin. sidoo kale waxay codsadeen inay arkaan waqtiyo habeenkii oo kulamada qabsanaysaan si culeysku shacabka uga yaraado. marka shacabka culeyskiisa waxa yarayn kara waa annaga. waxay kaloo codsadeen xildhibaanada sharafta leh inay degaan bakaaraha, jidka soddonka, jidka warshadaha, si dawladnimadu u gaarto dhammaan gobolkoo dhan. marka waxaan aad idinkugu maaragtay hambalyaynaynaa sida aad ugu istaagteen waddankan. dhammaan hay-adahoo dhanna siiba baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in howlahooda ilaah u fududeeyo. shacabka gobolkan waxay diyaar u yihiin wax walba oo